halkani waa City waxaana ay Zaki Soomaali waxaad ku soo dhawaataan wararka dunida qodobada ugu door karan waxa kamid noqon doona kulan dhexmar wasaaraha Soomaaliya iyo safiirka Masar ee Soomaaliya wasaarka xogeenka dalka oo xarag ka jaray xarunta bixinta lacagaha midaysan guddiga shaqaalaha rayidka oo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay dhuuso mareeb oo lagu soo dhaweeyay guddiga heer federaal ee doorashooyinka booliska galmudug iyo Puntland oo iskaashanaya oo gacanta ku soo dhigay eedeysana dil ka fuliyay waqooyiga Galkacyo duqa Muqdisho oo sheegay inay qabanayaan doorasho xor iyo xalaal ah qodobada dibadda waxaad ku maqli doontaan gacan ku haynta caasimada kale oo gacanta u gashay Taliban qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan sidoo kale kuna daawan doontaan ee u diyaar garow wararkeena maanta markale soo noqod waana wanaagsan waa todobada bisha 8 sanad 2021 qodobadii aad maqasheen oo intaas ka faahfaahsan wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble iyo safiirka Masar ayaa kulan ku dhaxmaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka kulanka ayaa loogu wada hadlay wada shaqeynta ka dhaxaysa labada dal wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa warbaahinta u faahfaahiyay kulanka iyo waxyaabaha ku dhaxmaray wasaaraha Soomaaliya iyo safiirka Masar ee Soomaaliya waxa farxad noo ah in aan maanta kulan kula qaadano safiirka Masar u fadhiya Soomaaliya lana kulmay ra'iisul wasaaraha safiirkii anagu waxaan ka wada hadalnay howlo badan oo soo socday oo wax wada qabsi iyo xiriirka labada dal u dhaxeeya waxa farxad gaar noo ah in maanta dawladda Masar ay bixisay mucaawino ah inay hore u soo qaado oo ciidamadeeda ay soo qaadaan daawooyin iyo maaragtay qalab loogu talagalay cudurkan COVID-ka ah taasoo imaan doonto 12-ka bishan taasoo ah waqtigii ugu fiicnaa oo caawimaad noocaas oo kale imaanaysay iyadoo ay maan ognahay inay maalin walba kor u sii socoto dadka uu infectionka ku dhacayo howlahaas iyo howlo badan oo kale oo aan ka wada hadalnay runtii aadaan ugu faraxsannahay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud oo ka warbixinayay kulanka maanta ka dhacay Muqdisho oo dhaxeeyay safiirka Masar iyo wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble Mahdi Maxamed Guuled Qadar ayaa xaraga ka jaray xarunta bixinta lacagaha midaysan ee bangiyada dalka waxa uu bogaadiyay bangiga dhexe waxyaabaha uu ka hayo gudaha dalka Soomaaliya lacagaha maraya bangiyadu ay wasaaradda bangigina ogaan karo idinkuna ogaan kartaan waxyaabaha kale ee lacag dhaqida iyo laga sheekeeyay la yiraahdo dal sidee lagu aamini karaa way sahlaysayo habkayaga lacag bixintu waa ka isku xiran hadii keenna guduhu hagaagsanaado oo midaysnaado oo lagu kalsoonaado in kalsoonida dhisno maanta runtii nidaamka maaliyadda iyo xisaabaadka ee dalku uu yahay mid lagu kalsoonayo la aamini karo تعب يددال فربنا دمانتين بأن وذا قلنا مرة وين نافض ذانيسا إن بنجيده كله دنيانا أي نكحرنا إذن كايجا قوم بدن وحلاقيها بنجيجات ودرس العقد ددال كحوالده هن كايستيل شركته هن يبنوكتا العجها وريتشينية إنتوا اللي هي خرج كذا كجبحة ديارات لقوا ساق هذا عدل صار راعيه كايستيل لكيانه لكن هذه اسكو xidhkaas gudaha inooga hirgelay mar dhowna dadaalka aynu sameeyno doono inooga hirgalo dunidii kale waa Mahdi Maxamed Guuled Qadar oo ka warbixinayay xarun xarag laga jaray ee bixinta lacagaha midaysan garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo waxaa lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha shaqaalaha rayidka ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya soo dhaweyn kadib waxaa loo galbiyay qaybta fiyaabida ee garoonka diyaaradaha oo warbaahinta kula hadlay waxa uu ugu warbixiyay socdaalkiisa uu maanta ku gaaray magaalada Baydhabo taasoo ujeedada ay kulmadii hore socdeen iniyoonay nasiiban weelati koonfur galbeed inay la ku bilaaw taasoo lagu hadal doono qaabka wada shaqeynta iyo nidaamka shaqaalaha rayidka dalka dhan qaabka iyo ka amba qaadan lahayn ku wada hadal doon eedayeedan ka faraxsana doodana ma aragne bari kulankan rasmiga ah ama qoys wadaarsiin furmo doon muddo 5 maalmood dareero doon
kaasoo walbadan ma aragne la iska wadaarsadan doono iyo sidii wada shaqaynta la sii xoojin lahaa una dooda jangala doono way islahaa inay dhammaan guddiyada shaqaalaha dowlad goboleedka iyo maamulka gobolka Banaadir ka jaraanba inay barnaamijkan wax ku ool ah ku saara iyo idanka rajowina waa gudoomiyaha shaqaalaha rayidka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya wali waxaa magaalooyinka maamulada dalka ka socda doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya guddiga heer federaal ayaa maanta gaaray magaalada Dhuusamareeb si ay gurjoogto ugu noqdaan doorashada la filayo inay ka dhacdo magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug waxaan u nimid si dardargelintii doorashadii aqalka sare ee wadanka ka bilaabatay dhammaan oo hadda meelo goobo ka mid ah maamul goboleedyada soo qabteen si ayna Galmudug ay mataqaanaa roolkii aan ku lahayn oo qayb qaadano mudane gudoomiye qorshahan u imaanay waxa weeye inaan adinka in kabno shaqada ugu badan maamulka state-ka aad meesha ka haystaan sidii heer federaal si doorashada mataqaanaa aan wixii aan ku lahayn ama roolka aan ku lahayn oo qayb qaadano waxaan ugu xigi doono waftiye kale oo hogaaminaya gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal mudane maxamed xasan ciro si aan iskula jaan qaadno wixii qorshe ah oo plan ah insha Allah waan halkaan aan iskala taabaqaadi doonaa qorshahaas oo mataqaanaa isku jiri doono in guddiga siidka iyo guddiga doorashooyinka heer federaal is arkaan howlgal lagu baarayay nin eedeysana la sheegay in uu waqooyiga magaalada Gaalkacyo dad ku soo dilay ayaa gacanta lagu soo dhigay baaritaanka ayaana noqday mid lagu soo guuleystay waxa ay booliska Galmudug ku wareejiyeen booliska Puntland eedeysanaasi booliska Puntland ayaana sheegay in ay wada shaqayn fiican kala dhaxayso kan Galmudug Cabdirasaaq Muuse Jaamac oo ahaa ninkii gacanta ka dhacday xalayto ay kaga dhacday saaxiibkiis dhintayna isagana la soo xawaalay kiiskaasu ilaahay mahad oo ilaahay u sugnaatay waa noo soo gabagaboobay waa soo qabanay ninkaas waxayna ku fududaatay wada jirka iyo wada shaqaynta labada ciidan aad iyo aad maaragtay u hufnaa haddii aysan iskaashan lahaynna waxaan rajaynayaa inuusan hirgaleen in la soo qabto waxa la yiraahdo eedaysanahaas kiiska lagu daba joogay waxa weeye waxaan leenahay shaqada wada jirka muhiimadaas ay noo leedahay hadday xagga tahay hadday xagga tahayba gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Finish ayaa sheegay in la xaliyo khilaafka ka dhex jira guddiga doorashooyinka ee gobolada waqooyi kadib doorashadii ka dhacday magaalada Muqdisho oo gudoonka lagu doortay maanta waxaa noo fudud markaa wixii maanta ka dambeeya in doorashooyinku si habsami ah ay u sii socdaan walaalaha aan ka soo qayb gelin oo xubnaha guddiga ka mid ahaana waxaan jeclaan lahaa intaasu inay ugu fillaato wixii isjiijiid iyo tabasho iyo is-hortaag ah oo ay walaalahooda kale dhinacyada ka soo fadhiistaan si ay doorashada qaybta uga aadan ay uga qabsadaan qaybihii dambe ee wararka dunida Taliban ayaa gacan ku haynta magaalo oo awood ku lahaa dagaal oogaha caanka ah sida wakaalada wararka ee AFP-da ka soo xigtay saraakiisha ciidamada waxaa la sheegay in ay saacadaha soo socda ku sifidayaan magaalooyinka ay halkaasi Taliban ka joogaan wararkii dunida waaniga inta ku kulmi doono warkan kiis xiga waa baahday si toodin leh sida ay nabadgelyo